waa sax in muddo 3 bilood aan halkan ku soo gudbin wax muuqaal ah laakiin maanta uu ka duwan yahay muuqaaladii hore haddii aan soo gudbinay muuqaalo naxariis ku dheehan tahay maanta waxaa si naxariis la'aan ah loola dhaqmayaa walaalahayna Falastiin Gaza saan ayay ahayd ka hor duulaanka qaawan ay sameynayaan diyaaradaha gumeyska Israa'iil kadib saan ay isku bedeshay xabaal koronto la'aan biyo la'aan cunto la'aan iyo duqeymo har iyo habeen sababtana ku sii darso Gaza waa meelaha ugu dhifan dhanka bulshada dunida meeda bini'aadamnimadii aawi kuwii u doodaya xuquuqda aadanaha aawi reer galbeedkii taageeraya Ukraine kadib duulaankii Ruushka maskaxdaada haddii ku soo dhacayaan su'aalahaas waxaad ku ilowdaa markabka diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ugu soo diray biyaha badda Mediterranean-ka maya hal mid kaliya maahan mid kale ayuu soo dirayba Allah haddaba su'aashu waxay tahay maxay ka qabanayaan biyaha baddaas adiga haddaad isweydiisay su'aashan ogowsi Putin uu isweydiiyey aragnay mowqifka ay ka qaatay reer galbeedka xaaladda dagaal ee Gaza ha ahaato siyaasigooda kooxahooda ciyaareed iyo xitaa ciyaaryahanadooda aaway doorka dunida islaamka aaway carabtii waa mid lala yaaban yahay waxaa ka soo harayba cambaaraynaya hana loo furo meel aan gargaar bini'aadamnimo aan ka gaarsiino waa cajiib runtii tani waa Antony Blinken waa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka wuxuu horaanta isbuucan boqday Israa'iil wuxuuna ka jeediyay hadallo adag oo dunida islaamka yaabiyay sida Mareykanku uu difaacay Israa'iil inta uu Mareykanku jiro yaa hadallo adag oo kale safarkiisa bariga dhexe wuxuu ku tegay ilaa 5 wadan oo kale oo Carab ah maxay noqon kartaa ujeedada safarkiisa ma inuu wadamada Carabeed ka dhaadhiciyo inay ka aamusaan indhaha ka daawadaan wax qasa ka dhex socda markaan iyo McDonald's waxay gaarsiiyeen cuntooyin ciidamada gumeyska Israa'iil taasoo dhaleeceyn badan loogu jeediyay waxaana si cad u dhaleeceeyay macaamiishada qaarkood ee xarumaha ay ku leedahay dunida islaamka iyo carabtuba iyagoo lacago deeqa bixiyay si loogu fidiyo gargaar bini'aadamnimo marinka Gaza tani waa gabadha macallimu Pep Guardiola Maria macalinka kooxda Manchester City iyadoona taageertay Falastiin kana soo horjeesatay xasuuqa ka socda marinka Gaza tani waa askari ka tirsan ciidamada Ukraine wuxuuna sheegay haddii Falastiiniintu yihiin argaxiso haddaba dadka reer Ukraine ay isku dayayaan inay dib u soo ceshaan dhulkooda iyaguna waa argaxiso oo wuxuu ku durayaa Zelensky iyo dowladda Ukraine kuwaasoo taageeray duulaanka Israa'iil ninkan waxaa lagu magacaabaa Jackson Hinkle dabcan waa muwaadin Amerikaan ah wuxuu garab istaag aad u balaaran u muujiyay Falastiiniinta heer qoraallada ku qoray bartiisa X ay noqdeen kuwa wadna qabad ku noqday Israa'iil iyo dadka ololeeya waxaana laga bloog geliyay koonka saxda Israa'iil waxaana sidoo kale bloog saaray Jordan Peterson hakereebay sidoo kale Netanyahu wasaaraha Israa'iil bal waxaa kaaga daranba in hawada laga saaray YouTube channelkiisa taasi ku xiran yihiin ku dhawaad 300,000 isagoona sheegay in sababtay tahay inaysan rabin in 300,000 qof ay ku xiran inaysan ogaan xaqiiqada dhabta ah ee Ukraine iyo Israa'iil wuxuuna xitaa isweydiiyay su'aalo ay adag tahay in saxaafadda reer galbeedku ay ka jawaabaan sidoo kale madaxweynaha Ruushka ee Putin wuxuu aad u fahansan yahay dhagarta reer galbeedka isagoona qarsanba taageeradiisa ku aadan Falastiin iyo xitaa gudaha kala fadhiga qaramada midoobay isagoona taagan waa muhiim in Falastiin ay noqoto dowlad madax bannaan isagoona sidoo kale Israa'iil uga digay in dagaal dhulka ay ku qaato marinka Gaza ayna ka dhalan doonto cawaaqib xumo sidoo kale Putin wuxuu sheegay in sida loo go'doomiyay Gaza ay kala mid tahay sidii naasiyiintii u galeen magaalada Leningrad Iiraan iyadoo go'aankeedu waa mid cad yahay taas wax shaki ah kama jiraan oo dhaqdhaqaaqa Islaamiga ee Xamaas ayba taageereenba horaantii dagaalka iyagoona markas garab taaganba sidoo kale dowlado badan ayaa cambaaray duulaanka Israa'iil waxaana ka mid ah Malaysia Ruushka Ireland South Africa iyo China waxaana sidoo kale banaabaxyo lagu taageeray Falastiin ka dhaceen magaalooyin badan oo Carab ah iyo kuwa gudaha Yurub iyo caalamkaba dad badan ayaa ku waayay xubno ka tirsan qoyskooda waxaana ka soo warbaxaya fariimo qalbi jab ah uusan xamili karin qalbiga aadanaha ininta qalbi jabka waa wax iga dhigay in mararka qaar la ilmeeyo sida wariyahan uu la ilmeeyay markii uu arkay gabar yar oo madax iyo qoorba aysan ku horinba kadib duqeyntii diyaaradaha Israa'iil markasta qalbiyadeenu waa kuwa la jira walaalahayna Falastiin